adiga dhibaatadan uu kuu geystay wiilkaaga beri hadduu maqlo hooyadiisaa tahay yacni cunugii wuxuu noqonayaa dherigii dhan kastaba ka gubtay waxa ana hadda la ilmeeyo waxaa waaye hooyaday caydayda oo aad ii dhibto aad ii dhibtaa markaa social media joogo aad ii dhibtaa marka cunugaaga tomorrow war inaan naf inaan dilo iyo gaagisirnimo iyo waxaan weligay ku fikirin aan mararkii qaar isoo martay yacni cunugaaga beri markuu arko hooyadiis iyo ninkan adiga hadda maaragtay aad isku dhigan tihiin hooyadiisa dhimatay oo asnala way dhimatay oo ayadiisa aad isku soo wada noqonaysiin yacni cunugiina waa qofka meesha ku baaba'ay beri mustaqbal uu rabaa rag uu beri la xifaaltamaa you never know inuu caan noqonayo you never know inuu player noqonayo you never know inay u kala kacayso ma ogaa kartid marka cunugaaga beri jalaac ama dhibaato uusan ugu talagelin inuu madaxiisa dhulku u aadiyo adi sabab baa u noqon farxad usoo fariisatid arrinkan adi ma dareemi kartid laakiin aniga social media khibraddan u leeyahay aan aniga la ooyey oo waxaan la ooyey wiilkaas beri muxuu ku dareemi doonaa hooyadiis oo waxaan social media adduunka inaad ka tagtaa macquula cunugeer mustaqbalkiisa waa runta in laga fikirto ama aad ka oysid laakiin aniga tayda macnaha easy kula tahay wax lagu sameeyey it's not easy laakiin hal mid abaayo macaanay adduunkaa ma ogid inta lagu siiyey haddaa adiga adduunka ka tagto waxaan adiga meesha kugu jiro beri cunugaaga waa dhibe haddii stiil aad joogto waa dhibe laakiin cunugaaga haddii uu daawado qadarka adiga kugu dhacay fiiri qadartan bini aadamka ku wada dhacayso qof xun keliya dhibaato ku dhacdaa ma ahan mararka qaar dadka wanaagsan dhibaato way ku dhici kartaa samirkaaga wiilkayga marba odayga dhalay oo maxaa la yidhahdaa nin weyn hadduu bannaanka geeyo waxaa aragtay oo social media galeen micnaha haddaa aniga xataa aamuso waa ku jiraan social media odaygu wixiisa ku jiro abbaay macaan mid iga dhegeyso kala fiican wayna kala xanuun badan tahay kala fiican kala xanuun badan eraygaas hooyo aan ku dhahayo miisaaniyadu wataa qalbi fiican ani ilintaada xalay soo jiidatay midda kuu sheegaya waxaa waaye arrinkan dhibaato kastoo laguu geystay iyo xanuun kastaa tabanaysid waddo kale u mar laakiin tan social mediaha ah wallaahi oo bilaahi oo tallaahi xanuun iyo dhibaato iyo foolxumo sii badata maahane wax maanta ka soo naasa caddaanayo oo wanaag ah ma jiro soomaalidan na wada daawato marka uu barnaamij ama arrinna haysatana wallaahi alcadiim way og yihiin inta wanaagga jecel ayaana u badan in haddii life aad soo furato ayan macno soo kordhinaynin inay foolxumo soo kordhiso maane marka malyuunay caawo taariikh qor taariikhdaasaa qoraysidna ha noqoto hooyadii ugu horeysay ee ayada ninka roonaata faataxada qaado abbaay macaan aa ku wada duceyno arrinkan bartaas uga har haddii aad maaragtay ii sheeg maxaa la yidhahdaaye xanuun iyo dhibaato aad gocanaysana ha noqoto midaad hoos aad u dhammaysato ilaan dadaad ka dhalatay asna daduu ka dhashay laakiin arrinkan caawa waa kaaga dhegnay jawaabtii u dambayso oodna siinaysana faataxada diyaara waa ha noqoto wasalaamu calaykum waa ku baryaynaa abbaay adna taariikhda buugga taariikhda gal oo gabadhii ugu horeysay oo ayadoo xanuun dareemaysa hooyo ah na maqasho noo qabsatay noqo faataxadan aan idin dhiba miya hadalkayga maya yacni waxaana dhibayaba caayada beri lagu soo cayn doono iyo adigoo hooyo ah oo xanuun dareemaya in caayadaada social media ay ka socoto ayaa aad noo dhibaya oo wallaahi oo bilaahi oo tullaahi ana hadda maanta waxaa ogahay garantiyo malyuun haddii beri daaqado kale laga soo furto iyo in xitaa kuwa rasmiga kula dhasheen ay gubanayaan marka abbaaya macaan adiga oo dhibaataysanaan ognahay xaqaaga si hoosaa lagugu dhicinaa after lifekan faataxada aa qaadatidna waxaa balan lagaaga qaadaa balan
يعني hadduu xitaa damiirku sii jiro waa damiir u dhiman yahay ninkaasu waxaan balan kaa qaadaynaa in ummadda soomaaliyeed oo dhan ay madaxa cimaamad kaa saarto taasan kaa balan qaada faataxada ii mar waaye allah yacizak meeshaasaan ku joojinaa khayr allah ku siiyo faataxada oo wada mar gabadhaas ilaahay maaragta abaayo iyo xanuun kastaa dareemaysa qalbiga kuu qaboojiyo dhib kastoo laguu geystay ilaahay qof looga haro adduunkan qof ka weyn ma jiro si kastaa u aarsato bustoolad qaadato ilaahay qof looga haro wax ka weyn ma jiro faataxada bismillah الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت مليون واد عيسى أبايو waxaana kaa baryaa oo aan ku leeyahay caawa saxada u qaadatay ha kuu noqoto abaayo macaan gabadha yar ee quruxda badanaa tahay noloshaada hore usii wado social mediana waa imaan kartaa oo shalaysaa u baashaali jirtay noola baashaal ood geemka noola dheeli jirtay dadkaaga u dhex jirtay arrinkaana si hoose ugu dhammaanaa ninkaana soomaali u daayay saa faataxad u qaadatay oo hadda commentiga loogu soo wada qoraayo ee noqotay waa guulaysatay ninkaana soomaali oo qabiil kasta leh u daay soo waxa garata maaha guulaysa abaayo thank you adigana aada mahadsan tahay maasha allah guulaysa abaayo waana ku mahadsan tahay sida quruxda badan aad walaalaha oo cid kasta leh oo soomaaliyo idil ah aa u wada dhegaysatay aad iyo aadan kaaga mahad celinayaa waa duceysata magtaydan ka sugooyaa magtaada iyo wax kastaba waa leedahay xaal iyo xumeenba soomaalidan magtaydan ka sugooya weliba mareexaansada magtaydan ka sugooya waa ballanaan iyaga soo maahan khalaas magtaadana waa helaysaa xaal iyo xumeenna waa helaysaa soomaali maxamed oo dhanna garabkaagay taagan tahay oo gedi waxay kugu soo qorayaan wallaahi oo bilaahi gedi waxay kugu soo qorayaan waa ku faraxsanna soomaali maxamed oo dhanaa kugu faraxsan oo kule garabkeedaa taaganna hooyanimo maliyun rooblanimo intaba way kugu garab taagan yihiin guulayso waa guulaysatay waxaa waaye allahu mustacaan hadda wixii ka dambeeya ahu malyuuntii aan naqiinay oo geemka ciyaari jirtay oo kaftami jirtay oo baashaali jirtaa kaa rabnaa diyaar waa faatamaano ya gabadhii aan naqiinay ee kaftami jirtay ee baashaali jirtay aan u baahannahay meeshaasay ku dhammaatay hadda inti khayrka jecleedna waa kuwaas wada faraxsan commentiga maaragtay gifti muhiim maaha dadka commentiga kusoo wada qoraaya maasha allahda ee garabkaaga taagan xisaab ma leh maanta waxaan ogaaday mataqaanaa horta 9,000 ay daawanayso qof tanay ku dhow yihiin waxaan ogaaday CK horta Soomaali waa inta badan dad fiican waaye ma fahanti because of 9,000 oo daawanaya hal qof oo ha cafinin ha joojinin magaceeda kuma jiro kulli milyan wiilka walaalka warkiisa maqal milyan CK qof fiican waaye hadalkiisa okay dheh milyan yes dheh milyan abaay sabar milyan raali noqo milyan aqbal wali hal qof oo ii soo qoray no ma jiro no hal qof ii soo qorin waana 9,000 something 10,000 wax yar ku dhow ka dhiman marka Soomaali horta dad oo jecel dibka ma markaan fiiriyo waliba haddana dadka hadda wayba naceen way daaleen foodo iyo dhibaato iyo ma jeclo ama santiin everybody giftiga soo dira marka walaa Soomaaliya 10,000 kun hadda intaas commentiyo wanaaga soo qorayseen in waxaan milyan ee idoo laga gardaran yahay oo waxaas dhibaato loo geystay oo dhaawacaas loo geystay oo ilmaheedii laga caayay oo nolosheedii laga caayo oo nolosheedii been laga sheegay oo iida dhan la dhibaateeyay haddii maanta ay tiri meegi bartaasaan ku toob garayna aniga haddaan milyan ahay aniga milyan ahaanteeda meeg dambe ma qaadanayo meeshaan ku joojinaya ninkan warkiisa haddii uu ka codsado CK haddaaba leedihiin milyan adoo dhibane haddana maxaa la yidhahdaa yes dheh maba waxaan ku diidaaba meesha hadda olin 10 people oo daawanayso one person oo igu raaca aan ka waayay inuu igu dhaho no marka waxaan leeyahay Soomaali aad amaadsantiin dad sharaf badan aad tiin wanaagsan maasha allah sidaas lamada marka xaqa mar walba u dagaalama qofkii la dulmiyo garab istaaga abaayo hadda fiiriya annaga youtuberadeenna wax naga dhaxeeya iska dagaal runa maaha moogti waxaa la dhahaa yaanyole isma ogola waxaan ku ogaaday Soomaali inay dad wanaagsan yihiin waxaan ku ogaaday
aniga haddaan social media ka maqanahay oo dhowr habeen laysoo hadal qaado oo dhallinyarada dhowr habeen ay la kaftamaan ay jafaan fiidiyoyada lasoo jaro commentiga dhan waxaa lagu qoraa ayadoo qabiil kasta leh ninkaa maahan camal kale ma jira miya